أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله waxaan soo gaarnay casharkii sagaalaad oo ah الميم والنون المشددتين. miimka iyo nuunka shidan xukunkooda. marka maxay dhahan waxa weeyaan xukumu almiim والنون المشددتين. xukumka miimka iyo nuunka shidan ama shad ku saaran yahay. xukumuhuma xukumkooda muxuu yahay? maxay yiraahdeen culamaagu? wujuubu waajib, wujuub waxa waajib ah الغنة غنة cod ka soo baxa sanqaroorta bimiqdaar inuu soo qiyaastiisu yahay xarakatayn 2 second, laba xarakadood farta laabid ee fidideeda ama 1 2 inaan tirinayno kale. في حالة الوصل marka la xiriiriyo أو الوقف ama lagu istaago سواء inkastoo waqaca ay ku dhacaan labadoodu في midkood yani inuu kelmad dhexdeeda oo ku dhaco في وسط الكلمة كلمة dhexdeeda أو في آخرها أو آخرkeeda waxay noqonaysaa in la quneeyo. marka muxuu yahay xarf المشدد? xarfka shidan asal muxuu yahay? yatakawan wuxuu ka samaysmaa oo ka abuurmay oo ka qoran yahay buu ku yidhi xarfka shidan min xarfayn, laba xaraf. xarfka oo shadadu saaranta waa laba xaraf. xarfayn الأول xarafka hore saakin, xarafka hore wuu reeban yahay. والآخر كلبادنا متحرك وشقلسن يو حركو ليهي. فيدغم ولا اسكو دحقلنا يدخل أي يدخل وحو دحقلا الحرف الساكن حرف كريبه هرنا في المتحرك حرف كلا شقل كسارين وينطقان مركانو حلوغو دواقع حرفا واحدا حرف كلياتا كالثاني أو كلبات مشددة نون كيميمكو اسكو ميد لكن لبضوبة sida أن oo kale imika maragtay an waxa weeye nuun reeban iyo na marka waxaan leenaynaa nuun tooraan ku dhawaaqana bacdina dan nuunta xaraksan marka wala isku idqaamay saanu dhiganay idqaamkana nuun saakin haday nuunka daba timaado waa idqaam. marka inaan qunayna an bay noqonaysaa hakada qunna. iyo miimka amma oo kale imika waxa weeye miim reeban miimtaasi shidan shad ku saaray waxa miim reeban iyo miim mutaxarika see ugu dhawaaqaynaa amma miimka isdhexgalayaan miim hal miim oo shidan ay noqonayaan. leesh laano waa isku mid hor way reebanta kalena mutaxarik laba iyaduna sifadoodu qunay leeyihiin. marka qunno in la qunay nuunka iyo miimka in la quneeyaa 2 second, laba xarakadood miqdaar xarakatayn waa ina la quneeyaa. miimka waa la isku idqaamaa markay isku eegaysan axkaam nuun miim saakina dhigan doono. الشدة شدكم maxay tahay? الحرف المشدد ولا بحرف اسكو جد. بعدين الشدة maxay tahay? تغني الشدة waxay naga reebaysaa عن تكرار الحرف حقي labada xuruf la isku aqori la xaraf iyo xaraf isku eeg oo la isdaba dhigi lahaa waxa bedelkeeda shadkaas calaamadaas la kor saaraya بالتالي lama تكرارك لما العلينيو waxay تغني waxay nagu filanaysaa تكرار بالتتابع in laba xaraf isku nooc isku xigaan في كلمة واحدة في كلمة كلياتا in laba xaraf isku eeg carabtu waxay jeclaan qurxiyaan khadkooda iyo qoraalkooda. marka laba xaraf isku xiga hal xaraf oo calaamadaas saaran tahay ku filan badan. الشدة shadku markaas ay keesabtaas u timid. ترسم waxa loo sawiraa ama loo qoraa فوق الحرف xarafka korkeeda xarafka shidan korkeeda loo qoraa shadka الحرف ترسم الشدة wax loo qoraa حرف إن كان مكسورا ترسم فوق الحرف إن كان مكسورا وتحت حركته إن كان إذا shadku waxay ka korarsanaysaa buu ku yidhi xarakada hadday maksuur tahay. marka uu kasro leeyahay oo xarafku maksuur yahay shadku way ka koraysaa xarakada. laakiin marka uu maftuux yahay fatxada ka hooseysaa. huna midlan eesh shadkii kasradu ay ka hooseysaa shadkuna kore ku qoran tahay marna hoostiisay ku qoran tahay shadka hoosteeda. laakiin تحت shadku waxa lagu qoraa تحت المفتوح fatxada أو مضموم ama damada iyo fatxada way ka hooseysaa shadku hoostooda lagu qoraa. الميم والنون المشددتان miimka iyo nuunka shidan maxay yihiin? تقعان waxay ku dhacaan وسط في وسط
كلمة دحديدة في وسط الكلمة وفي آخرها ميم كشدن ينون كشدن كلمة دحديدة أما آخر كذا أيكو قرمان كلمة في آخرها. وتسمى وحنا لو بحي حرف غنة مشدد، حرف غنة مشدد وحرف غنة يسن أو الشدة. الشدة تكون شدد وحيد راعدة تكون وحكو إيمان كرتا في الأسماء مقاعدة، والحروف حروف تنو راعي كركا، والأفعال أفعال كنا ويراعي كرتا شدكم مركا مقاعدة هي حروف تا أفعال فعل كبا ويراعدة مركا يعني معناها كلمة نصينا يسا أما معنيدو يهم مقع أما حرف أما مقع ميم كويران مركا حكو كانينا تصالة ميم كمشدد كم ميم كشدد هي النون كأشدد. وهنا عندك حمالة ميم تشنو كاسا كذا غنى مقدار حالتين ونعودكو كصبحة سنقرورتا محمد وتوسكن المزمل فأمه مش إن عندنا فأمه لا فأمه لازم قلنا هنا شدتان إيه قلنا لما قلنا ده مركان دمينه بعدين المد ثم هذه ما عندها مد المد وضعتها وهكذا. وأنا متكسته واختيس السينة. هذا هو التجويد يعطى كل حرف حقه ومستحقه. النون مشددة تصالها من جنات النعيم إن كأن هكذا النساء النور وهكذا. example بدن قرآن كودين سومري كرا صيفي عن example كو براكسس قراية. جزاكم الله خير. فيديو هريس كرا هذا وحكا كرنا قصنا إخفاء تصاله دي باكا قوي بي أحيد يا سلام مركا وحي أحيد أنت ايش من قبل انت اصنع شرحي بي أحيد أنت مركا تأدو يقدم بيسقلنا ديني نقلنا دو يران يس حروف طير حرف وين ادو كدب إمادا أداد كوير النقطين أديكتان من قاف وحرف وين وكدب دعقلنا دو ويناتا لكن ميمي مشددة النون مشددة وحروف يرير مركا ويران يساقلنا دينا لكن قوة بيلاده حوق بيلاده هاي وأنا سفيعا وقد واقنا حمالة عما يتسال إن الناس مقدار حركتين ميم تشدن النون كشدن إن تسال كدفت معها قلنا ذي وأنا الوقت جيد السيسا سيداد ما واجب وحنا قرحي قرآنك قلنا ذوي يمدودك. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.